madaxweynaha Somaliland oo magacaabay safiirka Somaliland u fadhiyi doona dalka Israel kaasi oo uu ku sheegay safiirka Edman oo leh awooda gaara kaasi oo uu magacaabay waa kuma safiirkaasi waa kuma shakhsiga ama siyaasiga madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu xushay in uu u noqdo safiirka Edman ee magaalada Tel Aviv warbixinteena aynu ku eegi doonaa waxaynu raaci doonaa hirdanka geeska oo cirka isku shareeray iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Israel oo Addis Ababa ka soo degay arrimaha marinka badda cas oo laga hadlayo aqoonsiga Somaliland oo Itoobiya si rasmi ah looga dhaadhiciyay waxa intaasi inoo raaci doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya oo isaguna ka degay magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalka Israel halkaasi oo kula kulmay dhigiisa Israel Benjamin Netanyahu maxay ka wada hadleen aqoonsiga Somaliland maxay ka yiraahdeen iyo sidoo kale xulafada abadweynta Pacifica badda Mediterranean-ka India Ocean-ka ilaa badda cas ee uu aasaasay ra'iisul wasaaraha Israel oo halkaasi lagu karkarnayo Somaliland ay qayb ka tahay dhammaan qodobadaasi iyo faahfaahintooda ayaynu ku eegi doonaa warbixinteena u diyaar garooba aynu ku bilowno hirdanka xiisada gobolka ayaa cirka isku shareeray taasi oo ka dhalatay aqoonsiga dawladda Israel ay ku noqotay dalkii ugu horeeyay xubinka qaramada midoobay ee aqoonsada jiritaanka iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Somaliland xiisada uu ku abuuray gobolka geeska Afrika iyo bariga dhexe ayaa waxa uu keenay inay sameysmaan xulafooyin oo mid walba uu dhankiisa ku doonayo istiraatiijiyadda marinada muhiimka ah ee ay dhacaan badda Aasiya gacanka cadmeed Itoobiya waxay noqotay dhaxalka la isku wadaarto ee xulafooyinku ay kala hogaaminayaan Sacuudiga iyo Masar oo isku dhinaca iyo Israel oo dhankeeda hogaaminaysa xulafada weyn ee dhawaan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Israel taasi oo iskaashi military oo ay samaysanayaan dalalka inta u dhaxaysa badda Mediterranean-ka Indian Ocean-ka ilaa badda cas kuwaas oo ay qayb ka yihiin wadamada Hindiya Greega Itoobiya Somaliland Imaaraadka Carabta iyo Israel oo iyadu aasaasaysa safarada daludhigista xulafada cusub ee ka dhanka ah dalalka Masar Sacuudiga Pakistan iyo Turkiga iyo waliba loobiga ololaha aqoonsiga raadinta jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa uu ka bilowday 25 bisha magaalooyinka Addis Ababa oo caasimadda Itoobiya iyo caasimadda Tel Aviv ee dalka Israel waxaana Itoobiya soo gaaray madaxweynaha Israel Isaac Herzog halka dalka Israel uu gaaray ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi waxaana labada safarba lagu karkaranaya ama ujeedadoodu qayb uga ka yahay asal dhiga aqoonsi raadinta Somaliland safarka madaxweynaha Israel dalka Itoobiya hadaynu ku horeyno waxa uu salka ku haya arrimo dhowr ah oo kala duwan waxaana warbixin ay ka qortay socdaalka Isaac warbaahinta Al Jazeera ay tilmaantay in ujeedada safarka madaxweynaha Israel Addis Ababa uu salka ku haya saddex qodob oo waaweyn kuwaas oo saldhigoodu yahay Somaliland iyo ictiraafkeeda iyo baabiinta socdaalkii dalabka watay ee madaxweynaha waddanka Turkiga uu Abiy Ahmed kaga codsaday inaanay Itoobiya qayb ka noqon dalalka aqoonsanaya Somaliland sida oo kalena aan xubin ka noqon xulafada cusub ee Israel Al Jazeera ayaa warbixinteeda waxay ku sheegtay in socdaalka madaxweynaha Israel la mudday maalmo kadib markii uu Itoobiya safar ku yimid madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyada oo xukuumadda Tel Aviv dareemaysa in Turkigu doonayo sida uu xiriir xooggan u la yeelan lahaa Itoobiya Israel oo dalkii koowaad xubin ka noqda qaramada midoobay ee aqoonsada Somaliland waxa ay ku jirtaa dhinacyada dadaalka ka wada dalka Itoobiya waxaanay ka hortagaysaa isku day kastoo Itoobiya ku qaadan karto go'aan ay kaga hortimaado aqoonsiga Somaliland iyadoo taasi bedelkeeda ku qancinaysa inay aqoonsadaan jaarkeeda Somaliland si ay Itoobiya dhankeeda u hesho marin ay wax kala soo degto oo laga heshiiyo dhanka kale Israel oo hore Itoobiya uga taageertay dhismaha biyo xidheenka laga dhisay webiga Niilka ayaa waxay hadda doonaysaa in Itoobiya ka taageerto sidii koronto badan looga dhalin lahaa biyo xidheenka iyo in sidoo kale Itoobiya laga taageero qorsheeda ku wajahan gaadhista marin badeed ku xidha adduunida inteeda kale madaxweynaha dalka Israel ayaa dhanka kale markii uu gaaray caasimadda dalka Itoobiya waxa munaasabad soo dhaweynaa oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda Gideon Timmermans iyo danjiraha Israel fadhiya dalka Itoobiya kadib Herzog waa madaxweynaha Israel wuxuu la kulmay madaxweynaha waddanka Itoobiya kaasi oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada caasimadda sida uu sheegay xafiiska madaxweynuhu halkaasi waxa loogu sameeyay xaflad sharafeed iyo sidoo kale soo dhaweyn ciidamo kala duwan kulanka rasmiga ee labada hogaamiye waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka taariikhiga sida loogu sheegay war laga soo saaray ee saaxiibtinimo u dhaxeeya Israel iyo Itoobiya iyo si qoto dheeraynta iskaashiga labada dal madaxweynaha Israel ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha dhigiisa isagoo xusay inay tani tahay booqashadiisii saddexaad ee Itoobiya iyo tii afraad ee uu ku tago dal Afrikaan tan iyo markii madaxweynaha Israel uu xilka qabtay xiriirka u dhaxeeya shacabkeena wuxuu si qoto dheer ugu duugan yahay bugaga taariikhda iyo hidaha bini'aadamka qodobka mideeye ee ku jira sheekada labada dal waa awood aanu leenahay iyo inaan gacmaha isqabsano midayna khayraadka ruuxiga ah iyo kan maadiga ah si aan u hal abuurno u horumarino una kobcino adanaha guud ee labada dal ayuu yiri madaxweynaha waddanka Israel muuqaalka bulshada Israel si weyn ayuu ugu hodmay xalka Itoobiya oo ay keeneen bulshooyinka Yuhuudda Itoobiya ku nool Israel aniga oo ah madaxweynaha dawladda Israel waxaan doonayaa inaan muujiyo qadarin qoto dheer oo aan u hayo bulshooyinka qiimaha badan ayuu hadalkiisa si raaciyay madaxweynaha dalka Israel dhanka kale waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed isagoo uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran qoraal kale oo ku daabacay bartiisa X ayuu madaxweynaha Israel wuxuu ku iftiimiyay qodobada muhiimka ee kulanka isagoo ku tilmaamay xiriirka Israel iyo Itoobiya mid leh fursado aad u waaweyn oo muhiima
labada hogaamiye waxay ka wada hadleen siyaabaha lagu xoojin karo iskaashiga laba geesoodka ee dhinacyada hal abuurka sayniska tiknoolajiyada beeraha suugaanta sugnaanta cuntada biyaha iyo tamarta iyo sidoo oo kale horumarinta iskaashi goboleedka si ay uga faa'iidaystaan labada shacab. Herzog waxa uu sidoo kale sheegay madaxweynaha Israa'iil inuu sharaxay dadaalada joogtada ah ee Israa'iil ay ku xoojinayso xiriirka ay leedahay dalalka kala duwan ee Afrika. Itoobiya waa dal muhiim u ah qaaradda Afrika waxayna 10 sano ahaayeen lamaana muhiim ah Israa'iil ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Marka laga tago warka kooban ee kulamada madaxweynaha Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya, haddana waxaa jira qodobka ugu weyn ee socdaalka Isaaq oo looga hadlay kulamada kuwaas oo warbaahinta Israa'iil ay ku sheegayeen in Itoobiya ay si rasmi ah u ogoshahay inay dhankeeda ka qayb noqoto aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland, balse Addis Ababa ayaa lagu warramayaa sida ay warbaahinta Israa'iil xusayso inay weli jirto hal shuruud oo ay ku doonayso inay ku hesho aqoonsiga Somaliland, kaasi oo ah in la dhaqan geliyo heshiiskii isfaham ee dhankeeda ka fashilmay ee Hargeysa iyo Addis Ababa wada gaadheen horaantii sanadkii 2024. dhanka kale Somaliland ayaa iyadu weli dhankeeda wax war ah laga soo saarin oo ku saabsan dalabka Itoobiya, inkastoo aan ilaa hadda warkani ahayn mid si rasmi ah ay u shaaciyeen Itoobiya iyo Israa'iil. geesta kale waxa xusid mudan in madaxweynaha Israa'iil ay gaadhay Addis Ababa kala hadlay arrimaha aqoonsiga iyo doonista Itoobiya badda cas ay dhawaan dalka Switzerland ku kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraahi Ciro, markaasi oo kulankooda lagu sheegay in laga wada hadlay sii xoojinta xiriirka cusub ee diblomaasiyadeed ee u bilowday Hargeysa iyo Tel Aviv. dhanka kale 25 bisha labaad waxaa dalka Israa'iil gaadhay ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi, kaasi oo halkaasi ugu bilaabantay booqasho 2 maalmood ah, waxaana madaarka caasimadda dalkaasi ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dhigiisa Benjamin Netanyahu. socdaalka ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa xoga sirdoon oo hoose waxay tibaaxayaan ujeedadiisu tahay bilowga dhismaha xulafada weyn ee qaaradaha kala duwan kuwaasi oo ay qayb ka tahay Jamhuuriyadda Somaliland. waxaa sidoo kale wararku tibaaxayaan in madaxda dalalka Hindiya iyo Israa'iil ay isla afkarteen in dowladda Hindiya ay noqoto dalka labaad ee ku soo xiga Israa'iil ee ku dhawaaqa aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland. waxaana hore ay warbaahinta dalka Israa'iil shaaca uga qaadeen in dalka Hindiya uu doonayo in uu gobolka ku yeesho saaxiibo muhiim ah maadaama uu yahay dalka koowaad ee ugu dadka badan caalamka, kaasi oo xilligani doonaya inuu qayb ka noqdo dalalka quwadaha adduunka ee dhinaca dhaqaalaha hogaamiya maadaama uu leeyahay wax soo saar aad u badan oo dalkiisa uu soo saaro gaar ahaan dhinaca horumarka warshadaha. waxaana qorshaha ra'iisul wasaare Modi ay tahay in qaaradda Afrika uu ibgeeyo wax soo saarka dalkiisa, taasi ayaana qasab ka dhigaysa in uu dal muhiim ah ka helo marinada muhiimka ee badda cas iyo gacanka cadmeed. dhammaan socdaalladaasi Addis Ababa iyo Tel Aviv ee xulafada Somaliland ayaa la filayaa inay ka soo baxaan war weyn oo mar kale saameyn ku yeesha dalalka gobolka iyo bariga dhexe ee diidan in Somaliland ay noqoto dalka mid ah kuwa caalamka. dhanka kale waxaa xusid mudan in la shaaciyay safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku tagi doono Israa'iil si loo saxeexo heshiiska Abraham Accord oo saldhig u ah wada shaqaynta diblomaasiyadeed ee ay wada gaadheen Somaliland iyo Israa'iil. waxaana heshiiskaasi qayb ka ah marka laga tago horumarinta arrimaha bulshada mid difaac oo la filayo in Israa'iil ay noqoto dowlad damaanad qaada ammaanka difaaca Somaliland. tan iyo aqoonsiga Israa'iil wajahaysa culeysyo waaweyn oo dalkan yar ee Somaliland uu kala kulmayo dalalka waaweyn ee gobolka iyo kuwa kale ee bariga dhexe sida Sacuudiga, Turkiga iyo sidoo kale Masar, kuwaas oo iyagu si weyn uga soo horjeeda in Israa'iil ay fadhiisan ku yeelato gacanka cadmeed una soo dhawaato badda cas. وهاك داود يا أنت سيه دان كجت كنا ورك سنة مدحونها جمهورية الصوماليلان وسيد كلا فيليون دوان سؤال كنت جدال كإسرائيل أيها وحى ومجعبي دنترها عم وصف فيرك إدمان دالك الصوماليلان وفردي دونا دالك إسرائيل. مدحون عبد الرحمن محمد عبد الله الرؤيا ورئيس وزراء مدحون الصوماليلان أيها وحى وشكتين مدحونها جمهورية الصوماليلان عبد الرحمن محمد عبد الله إرو والدكتور محمد عمر حاجي محمود ومجعبي إنه هذا سفير كبوحة أو إدمان جمهورية الصوماليلان فردي دونا دالك إسرائيل. ورك كسب محمد عتيد أيها لو شاقين إن سفير كان أولي هذا مان قيبها أولها حقوق iyo ككو حسن حل كاسيسي وافصن دستور جمهورية الصوماليلان حركة دالك ويالا iyo qawaaniinta caalamiga ah iyo diblomaasiyadeed ayaa lagu yiri. warka lagu sheegay in madaxweynaha Somaliland uu ku magacaabay Dr. Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud. safiirkan idman madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu magacaabay Dr. Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud ayaa hore waxa uu soo noqday safiirka Somaliland u fadhiyay dalka Taiwan dowladii ama xukuumadii hore ee madaxweyne Biixi hase yeeshee madaxweyne Ciro xilkaasi ka qaaday ayaa wuxuu u magacaabay la taliyiisa gaarka ee arrimaha dibadda. waxaana maanta mar kale sheegay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro in uu noqonayo safiirka idman ee leh awoodaha kala duwan ee u fadhiyo doona Tel Aviv. geesta kale magacaabistaasi waxaa ka tareen celiyay oo ka jawaabay dowladda Israa'iil oo sheegtay inay si weyn u soo dhaweynayso magacaabista safiirka cusub ee ay Somaliland u magacawday dalkii ugu horeeyay ee qayb ka ah qaramada midoobay ee u aqoonsada dal buuxa kaasi oo Israa'iil. waxaana Israa'iil sheegtay in magacaabista mas'uulkani ay kor u qaadayso xiriirka diblomaasiyadeed iyo wada shaqeyneed ee xukuumadaha Tel Aviv iyo Hargeysa, kuwaasi oo xiriirka ugu bilaabmay 25 bishii December sanadkan kasoo gudbinay markaasi oo dowladda Israa'iil si rasmi ah u shaacisay inay tahay dowladdii ugu horeysay ee
aqoonsataa jiritaankii madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan badaldayntaas ayaan kusoo gabagabeynaa wartaminteenaasi ku saabsanayd arrimaha aqoonsiga Soomaaliland iyo sidoo kale safiirka madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay dalka Israa'iil warbixintan mid lamid inta kulmi doono waa anigoo isku dhaafaya Ramadan Kareem